السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي إذا قيمها يقدرين تمضنوا كسور هذا برنامج كنا عاوة ونكون فلاقين دونه حالته ودنبي جبن أما قلبات كالصومالي لان أو صدات كورقبتان سنده ودنبي أي كجرين اسمان دافية كلا دوان هذا بقى ما أنت محاسو كردي واسدي حالته سدي وحو السعودان وحا عاوة استوديها igu martiya oo igu soo booqday walaalkay Janaale magac dheer Raamale isla markaasina wax badan ka og ama ka soo jeeda maaragtay Somaliland marka ku soo dhow studio-ayga aan ku leeyahay nimc Janaale waan dhawahay Xasan aan Cabdi waan dhawahay markii maadaama ay soo booqatay waan kaga mahad celinayaa ku soo dhow bal dadkana u faahfaahi xaaladii u dambeeyay iyo halkay wax marayaan إذا نوفا فايسان جعله كسودو. أد بنودو حسن مارتي عبدي استديا كان أد بنو فرح سنة إن هذا كسودو يسو إن شاء الله وأنا لما هوران إن نفتي من مارتي ماذا مدتك أيوة ما قال حق التاجي ورك تاريخ وحي عن كائن ماشي حقيقة وحي لا نقول جينا وحكش جناي حسن ولا مرمان اللهم صل على محمد maanta waxa la maaragtay media u dambeeyo kaali siisido de hawshu waa tibriyaan baxsan soo socotay sidaynu ognahay laakiin maanta taynu yar taabanayna waqti yar oo kooban insha Allah waxay la tahay aniga waa garbada dar shaqaqada garbada dar ka dhacday maanta xasanow horta garbada dar bal aynu dadka aan maaragtay maqalka uu ku tahay bal wax yar aan isku daynaa inaan u iftiimino maaragtay horta garbada maaragtay bal halkay ku taala juqraafiyadeeda halkay dhacdaa waa meel caynkeeya sidoo kale maaragtay goorma ayay aasaasantay deegaan ayaa u leh bal intaas aan horta yar rabaa inaan yar taataabto dadka wax uga yar iftiimiyo waxa maaragtay magaaladan garbada magacani horta waa oday ciisa oo maaragtay reer cigaala maaragtay magaciisa maaragtay oo dadar la yiraahdo ayay horta ku magacaaban tahay garbada dartuna magaaladu way soo guurtay magacuna uu la soo guuray laakiin garbada dartu waxay ahaan jirtay meel ka yar fog halkan iminka ay tahay xoogay ka durugsan aan sii dheerin oo marka dusha u saaran maaragtay durdurka qabri baxar marka daba garbada dar halka waxa ka xiga lughaya inta kiiloomitir ay ka jirto qiyaas ahaan intii haddaan qiyaaso inay ka yareen baan malanaya ilaa 40 kiiloomitir gargaar ilaa 20 kiiloomitir bay u jirtaa xaggan sheed dheertaad maqashiin mar walba ayaa iyaduna ilaa 10 kiiloomitir amba 12 kiiloomitir ka saaran xagga koonfurta buuraley baa ka saaran doox waxa garab mara durdur biyeelo guye jiilaal aan gudin iyo garab maro qabri baxar la yiraahdo oo beeruhu ku badan yihiin dhul daaqsimeed geel iyo xoolaha u fiicanna waylaad waa meel aad u qurux badan waxay leedahay macdamna waylaad maaragtay aad u dhulka macdamtuna maaragtay ku duugantay horta garbada juqraafiyadeedu waa iska inaha laakiinse magacan garbada dar sida uu ku yimiday garbada dar kale waxa jireysay maaragtay oo magaalada waxaan ka yar fogeeday halkan durdurka dushiisa ahaan jirtay markaan nimankan halka deegaanka ku badan reer cigaalka bariya galbeed bay iyaga laftoodu u xifaaltameen waa xilliyada anigu maaragtay sheeko ayaan ku soo gaaray laakiin xilliga ma joogin waan yaraa aqli ma lahayn laakiin taariikhda si nagu soo gaadhay way xifaaltameen marka maasa waxa ka curatay maaragtay silsilad baa ka curatay cigaalka bariga iyo cigaalka galbeedka isu kala saareen cigaalka barigu waa halka la joogo meesha la joogo garbada dar iyo sida u celi laayay maaragtay baashi calxayd kuwan galbeedkuna xaggan ka soo bilowsheed dheer ilaa iyo gaarisay intaas mar cigaal galbeed bay iyaguna isku hayeen marka daruuraha iyo waxba ka horo meesha maadaama kaymeelay tahay roob badan iyo wax dhulkii kala abaara bay meesha barwaaqo noqotay deedna haday barwaaqo noqotay waa la soo wada doog raacay oo cusubkii baa la soo doontay meeshii magaalo xiimaysay iyo noqotay marka nimankii barigu marka nimankii galbeedka ay qujeeyeen gabayay ku dayeen Allah u naxariiso nuur weer ayaa maaragtay bilaabay maansada
cawaale caateeye oo isna reer cigaala oo hooyadii adeerkeed rumaada hooyadii waris cabdi caateeye cawaale caateeye xergeeye ayuu ku bilaabay maansada isagoo daadaansanaya markaasuu yidhi markii shaaha maaragtay nimankii makhaayadaha iyo hoteeladu u socdeen ee bariga nimanka kale waxay ku yimaadeen iyagu maaragtay dalandool bay ku yimaadeen nimankan galbeedku markaasay nimanka u shidnayd ee bariga yaa lagu yidhi maaragtay waryaha nuurweerarow nimankan galbeedka waxay naga dhe arrinkaa hoosuu ka xariiqay markaasuu wuxuu yidhi cawaale caateeyo gabayaa ahaabaa soo fadhiistay markaasuu yidhi geb qalloocan geedaha cilaan geb qalloocan geedaha cilaan galaha dhoobooyin gabtood baa ka yimid reerihii guga cawaalowe macnaha way idin soo gabtay dee meesha idinkan dee annagiina soo qaliyey wuu ka jawaabo wuxuu yidhi gebka toosan geedaha cilaan galaha dhoobooyin idiyo geel baa noogu dhalay garowna waa yaali ma nimankeenin geedaha gubtaa gabayga soo diiqay macnaha waxay ka shaqayn jireen xigga iyo waxbay gubi jireen iyo baashan dhuxusha iyo wax deedna maasa halkaa ka bilaabantay ayaa jirtay cigawayiic oo galbeedka isaguna ka safan ayaa markaa harig yidhi harigan qaadoo bal lagaa iibsada magaalada lagaa iibsado aad ku shaahdi harigana neef weydu ka soo saaray deedna hariggii baa laga iibsan waayey cidina may odhan dee niman tolay haayane waryaa ciga mee oo bal kaale maaragtay kaale shaah cabiyo wax cidina may odhanba ciga markaa wuxuu tirsaday godob buu tirsaday wixii gabaygii horena waa ogaaye maaragtay cawaale lagu gujiyeyna wuu ogaa wuu labeeyey hal labeeyee meeshiiba uu raray oo wuxuu ahaa cigawayiic allahu naxariistay dadka guhaanka maaragtay hadalka yidhaahaan sidaa lagu ilaahay ku aqbalayu ahaa wuxuu yidhi garbadada gumaysiga fadhiyey waa mid gadaweyne oo weliba ka geestaa fadhiyey sii gari weyn yahay allahu naxariistay oday isaguna cigaalka bariga ahaayo dee daahir maaragtay daahir waa beri loodhanayo oo nimanka meesha dee yaa miisaanka weyn ku lahaa oo weliba ka geestaa fadhiyey sii gari weyn yahay waa meel haddaad gool wadatay aan lagaa gedin anu harag baan sitaabu ku leeyahay laakiinse gool haddaad waddo kulaha in cidba kaa gadan mayso waa meel haddaad gool wadatay aan lagaa gadani waa meel kaniicada fadhida koranaad moodaaye godobtay samaynayaan nagu galaafan maayaan waanu insha allah wax alla wixii maaragtay dhammaan oo salaadiintii reer sheekh isxaaqna waa loogaa miidiyaha way hadleen shacabkuna sidoo kale diyaar baanu inaan meel iska saarna nimankaa godobtooda mooyaane nimankaasi waxay soo sidaan aba waxay uma maleeyaan nimankaasi waxaan odhanayaa ma jirtan iyo kuwaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay janaale oo magac dheer raamale sida wanaagsan nooga warbixisay waan kaga mahadcelinaynaa raamale run ugu kaalay sidaa weeye xasan mahadsanid aniguna waan kaga mahadnaqayaa run ugu kaalay mahadsanid